shaqadiisa ogas shaytoonkeeda oo ah markii la asaasay jabhadda ONLF guud ahaanba dalka gudihiisa iyo dibadda waxa looga dabaaldegaa asaaska jabhadda ONLF waxaa jirtay markaa waqti dhoweyto in gudaha la isu diiday welibana sabab looga dhigay xubnaha qaar la xidhxidhay qaarkood la jir dilay sababna looga dhigay waraaq dad magacii ururka sheeganaya wala anagii ururkii ah haddana waraaq ay soo qoreen in dad xubnihii ururka oo welibana calankii wata in lagu dhibaateeyo lagu xidhxidho lagu jir dilo barta sida aragta bismillah en yow arintaas way dhacday arin dhacday way ahayd xogaa lawana ahaa waan joogay oo jigjiga laftiisa joogay waxaan u arkaa horta si guud waa dhacdo waxa weeyaan dhacdooyinkii halgankii dhacayay baa lagu dariyo qaybtii dhacdooyinka halganka taariikh badan oo dhacdooyin u diiwaan gasho oo rag halgamayaal qayb ka dhacday iyo rag waxa weeyaan la dhashay cadawga qayb ka dhacday iyo rag waxba wuxuu ka dhacay qaar wadan ka dhacay taariikha u diiwaan gasho qodob marka horta koobaad waa dhacdooyinka halganka waxa weeyaan gobonimo doonka waxyaabaha mar qayb kamid ah taariikhda kale kamid tahay waxbay waliba kaga bedelan tahay waxa weeyaan xilliga lagu jiro iyo waqtiga iyo waaqaca xataa waxbay kaga bedelanaysaa oo barxado walba waxay leedahay xilli bay leedahay iyo wax u gaar ah leedahay marka arinta marka dhacday waxay ahayd arin markii dhanka xataa loo fiiriyo Soomaalidu waxay ku maamulada horta waxa shar moodayso oo khayr ku ajir Soomaalidu waqti maamulada marar badan baa sidii cilmiyeed u tagaan waxaad shar adigu u haysato khayr kuwa ya jiraba aan moogtahay ha kala marka fiiriyana waxaan hadda isleeyahay shar baa la mooday laakiin khayr baa u noqon ururka sababtoo ah adoo nafsi hura oo gobonimo doon oo urur go'aan adiga ka soo baxay in qof gobonimo doon lagu xidho iska daa gobonimo doon qof shacababa halka macna qofku markuu gobonimo doon yahay uu naftuura yahay shacabku siduu heerku ka joogay naftuurayaasha wax la xafira qiyaas kara ma la xijaalada macnaha shacabiyada meesha ka joogtay meel aad u adag bay ahayd waxa ka sii dareed la xijaalada gabdhaha rugadinaya Allah awood leh ismaan qaadir kaan ba abaalkooda gudi kara wax kale abaalkooda gudi kara hadda xoriyada bari xoriyada hadii la siiyo oo wadanka intuu xoriyada bari xoriyada taam noqoto kuwa nool ee jooga Allah awood leh abaalkooda gudi ka bilaa ma gudi karo meesha macnaheedu heerka ay istaageen halganka iyo waxay nala soo mareen waa wax aad maxaan ku dhahaa oo adag weeyaan marka arintaas u dhacday ahayd dhacdo aan qof macnaheedu waa lagu filayay dhacdo qof wadani oo naftuuro oo gobonimo doon u fiima ahayn badi ma sameyn karo wax uu sameyn karo barnaamijkaasi wuxuu ogas buu ahaa ogas marxalad badan baa lagu xusaa weligeed ana waxay soo martay naftuuro Cabdullaahi sugi lagu jooga hadda iyo aniga dhaawacayna qaali dhagax oo hayna shan naftuuro dhaawac annaguna aan nahay asaga iyo aniga iyo mid kale saddexdaas wax fiiyo ku jirnaa sideedaas aan qaali dhagax ku hayno asaga caafimaad markaa Cabdullaahi sugi iyo ogost noo gashay waana oomanahay raashin ma haysano biyana ma haysano waas ogost ma soo gashay ku xisaabtanka macni waxaan kaaga wadaa ururku soo u xisaabtami jiray asarkaan marka taabal caawa ogost 15 ogost maxaan ku xusnaa waa isweydiin hormeel baa laga xusiyay caawa ogost de farxadeeda ilaahay meel wax ka keenay heerka halkan bal aadami Cabdullaahi isku loo joogo ani naftood kala soo tagnay heerka aan imaanay duq waxa weeyaan waa boorley korkeeda odayaashii shacabka ay rogaadeen kamida oo meel degmaan u nimaadnay waan isbarideen waan u sheegnay waxaan ku nidhi caawa ogost marka wal dacwooyinta baahan inaan raadin jiray mogta waxaan ku nidhi caawa 15 ogost aaskii gobonimo doonka marka hadii in la xusaab rabaa biyo baadina ma hayno
سين حسنا أنت قصدي بيا أو استهدي عوضتها والحسن وقرنا إذا شيرجان بيا يجرب النوكان أنا جاب كسر قارة وحكم بحنا أولاد كاس أغسطس فرحة معني إنه أغسطس وحكى حصة وبعد ردي والله صوتنا ردي يجيجان كبيا هذا مالن كي أردن ده وحنا ودي حصة ونادي من متر وحكى رأي شيء إن عبد الله يسقي لفتي يبالي نفتوري في بال ديتر شيء لو قاعدين حبات اسكو فلان يكون حسين هل اسكو فلانة أو والله شراب لو ساق wax u dhuumatay marka jilwada ku jir yey August ka shaqaysay August maxaan ku xusnaa isku filantiiba iyagoo 3 iyo 4 midkooda ay qasteen markaasay waxay dhaheen kuwii kale ugu faaneen August anaga waan xusnay ama maxaad ku xusteen isku filan baan qasanay bay macni waxaan waa taariikh waa asaas waa wax fiican lahaday inaad gumeys ka baxdo sharaf yeelataa lahaday waa xusitaan xusuusin baa la dhahaa moogta farxadii nooca ahayd in lagu bedelo jirdil iyo dhaawac in lagu bedelo xarig oo alif adoo sheeganaya adoo on alifa oo calankii wata oo la mas'uulbaan waliba ahay inay farxadii noocaas ee ah ee dadkaas farxadda u soo baxayaan ee calanka loo iyo kaliyeed ma isku darsadaan waxa la xusayo dhan magaalada intii la dhaho aqal iyo hotel iyo wado iyo jid baa lagu xusay intii ay radho jigjiga iyo meel walba hal xusay intii la dhaho ninkan on alif waxa weeyaan warqada qoraya ee hala joojiyo wixiiba waxay dhahaan abaadinta hore dhaantay jirtay haysla booday bulshadu masla beeshaniba wax alla wixii calanka ka wata waa joox sama waxaas meesha wax waa farxad garanaysa meesha wada babiyaan marka arintaas arin aad idan qadab aad idan qadab walibana habeenkii waxaan isleeyahay waxba iga dhacay xaqiiqii aad baan murugada habeenkii barqankii dambe gabadh yar oo agoon oo darisnahay ana dhowraa la dhahaa oo aqra la dhaho aan deganahay iyo ciyaalkii subaxii soo waxay dhan August baan tagnaa August ma jirtaba oo meel walba ciidan ma fadhiya waan iska reebi waay waxaan ku yiri waan sasaa waxaan ku yiri dib baa loo dhigay maalin kale laga dhigay joog gabadhu way ooyaysaa markaa waxay leedahay August wallahi inaan laga celin arintaas markan waxay ahayd arin aad u dhacday arin waxay ahayd aan isleeyahay dad bay diirtay wax danaa ma garanaysaa iyay diirtay dad fiican oo wax ka doorsanaayeen bay wax u ifisay ma garanaysaa taariikh bayna qorantay wax qorantay weeyaan ururnimo iyo sharafnimo mid ma gabadha Soomaaliyeed in la xiro waxa la xiray 100 iyo walba dhowr 106 mise 110 qof yaa la xiray xafiis ba hadda xiran wali ilaa hadda waxa weeyaan la fadhiyaa iska soo qaafkii sida u xiran calamaantii iyo wixii oo dhan baa dadkii qaar baa la jibdilay arrin ka suuragali karta fikir iyo mabda oo qof la jecel ku jirta ka dhacan karta ma ahayn gabdhuhu iska daa gabdhaha ururka annaas kula ma hadlay xaqiiqiyan gabdhaha ururka iska daayay gabdhaha rag qaba adigu hadda xaas baa leedahay salahan nool waxaas bilaa Soomaa ninka shacabka ee gabadha oo qabo si xun ula dhaqma aan arko ilaahay baa iga sareeyay anoon dawlad ahayn maxkamad ahayn sheekh ahayn waxaan isku dayaa inaan ninka wuxuu ka qabto ninka shacabka ee gabadha la dhaqmaya waana sharci waa waajib gabdhuhu dumarku waa wax meel adag baa lageeyay rasuulka kaleey salaam dardaarankiisa u dambeeyay salaad iyo dumarka dardaarmo salaada iyo dumarka marka dumarka wuxuu yiri dardaaranka rasuulka kaleey salaam dumarka khayr u dardaarmo soo ma garanaysid marka sharafta ay leeyihiin waa dheeri anaga waxaan la soo mareen halganka waxay la soo mareen qof xataa laga sheegay karo marban hadii Allah idin rabaa inaan cashiro caadi ah ka diyaariyo gabdhaha ma garanaysaa qalbi diinleydii iyo qalbi diinley ma iyo una dhuux iyo maxaan ku dhahay waa janna gasho iyo waa wax magacyada la bixiyay magacyo waxaan caadi ahayn ma garanaysaa wayna ahaayeen baroon bayno ahaayeen oraal bayno ahaayeen gaariga wax qaada ka wax rida gaadiidka booyadii biyaha lagu qaadahayay matoorkii mashiin halganka dhan mashiinkiisa ahayn marka gabadh waxa weeyaan ururka oo caalam wadata ama hay'adda ama weynaatee qof urur ma xiri karaba cadawga iyo cid ay soo dirsadeen way xiri karaan way dhacdaa way xiriyeen way dilayeen laakiin waa been wax ka jira
oo arrintaa macnihii haddii lagu dhaho urur baa wax xidhay ruux urura oo nalif oo gabanadoona oy ka go-an tahay wallaahi waabaan ku dhaaranaya inuu gabadh agoontii way xidhnaya way xidhnaya ilaa 3 waxaa xidhnayd ina bishaaro geljira xidhnay waxaa xidhnayd ina salaya xidhnaa naftoori u dhalay 7-8 wadanaay baa waa xidhnaa marka qof urur arrintaa ma samayn karo mana samaynin shaqo cadowga diyaariyay bay ahayd wax la fulinayo lagu guuriyay bay ahayd wayna cadaatay waxaana is leeyahay waxaa weeyaan halkaa asaayadeeda halganka guul weyn baa uga soo hoyday dhanka kalena dhalinyaradii xaggan adigu mooysa inaan la xusin waa la xusay kuwa jeel ku jira xataa waa xuseyntii halganku moogtahay kulaylka wax uga dan yihiin halgan inuu nabad la iska ahaado waxba aan la dhaqaajin oo iska fadhiyo halganka waxba doon uga maaha anigu markii la yiri 100 intaas xidhan waan farxay sababtoo ah shaqaal gama dhaqaaqday waa la xidhay kuwa jeel ku jira way habaana ku jiray way xuseen si fiican oo maadaama habaana galeen kuwa jeelka garba way xuseen kuwa dhagax buur way xuseen kuwii mid kasta oo jeel galay si fiican buu xusay saasay sax ku ahayd macnihii ma aha in haddii la soo istaago ama la macaan ku dhahay laga celiyo ruuxa la xidhi karaa qalbiga lama xidhi karo halganku wuxuu ku jiraa qalbiga iyo qulubta dadka dhiigu ka mid yahay haddii dadka oo dhan la xidho dadku la xidhaan ogo imsa jirawadeen ku jirtay oo wax walba la sameeyay oo nooc kasta oo bil aadan la sameeyay dadka asagoo alif waxa weeyaan soo wada kac waxay dhijeen maxaa lagu suuroon jiray wax macnaheedu waa dhiigu raacsan yahay gobonimada haddii la wada xareeyo haddii la xidho waxba bedelay haddii la laayana inta leeg baa soo kacaysa oo maganaysa jiil baa kacaya marka arrinta aan ku soo noqday way iga yar ku laatay warqadaas iyo amarka cidii ku shaqeysay iyo cidii ka dambeysay iyo cidii wax falka wax ku lahayd hadayna ilaahay u toobagteen rabbiga khasmaa jalla hadayna u toobagteen aakhiriya adduun labada dhibicda guudan bataa guudan kala wayaaran shakiga ma jiro ballantii naftorayaashii hiday iyo agoontii iyo jajabkii iyo maxaan ku dhahay hooyooyinkii iyo gabdhihii hooyooyinkii abayaashii gablamay ballantoodii kuwii shalay waraa shalay kuwii annaga waxa weeyaan naf iyo maalba na halaagay heedhade iyo warqadii waxay fasax iyo gidhaaf ana igu dhahay adeer warqadtiina wax ku xidhinay maalkii maxaa annaga idinka xidhin yiri marka cadawgii bay baarmasiyeen cid kasta oo warqada qayb ka ahayd haddii ayna ilaahay uga toobadkeenin ururkiina ayna dhahay waxa weeyaan khalad baa dhacay raalli ahaada sidii naftooriyaasha kaloo kale maalin aan maanta ahayn oo aakharana waxa weeyaan aan dib looga noqonaynin oo la isugu tegay adduunkana ay barmadow ku qodmi yaa imaani xaqiiq weeyaan taa marka waa saas bay taas ahayd albaan raacinaya hay'adaha amniga ciidanka deegaanka wax badan baa isla soo maray raggii horta aanu isla kululaanay wax isla soo maray intii badnayd waxa weeyaan inay markii hore annaga iscabnayba in cafar iyo waxa weeyaan iyo orama intii badnayd baa bis waxay ba ka joogo macnaheedu waa aragnimadu qofka waxbay tartaa ma garanaysaa maalinkii anigu ay xabadda igu dhacday 3 madax uu joogay hadda raggii maalinkan dagaalka wada galay qola karambici korkeeda ahayd axmaarada karambici axmaara madowda yaa la socotay qayb iyo new booliska ahaayeen 300 iyo 9 baan ahayn badhan 3 madax ama 3 iyo 3 nin baan ahayn badhan 109 ha 300 sagaashan iyo 9 ha ma garanaysaa wixii la soo maray xogaal bay u ahaayeen naf iyo maal iyo xaalad ma garanaysaa uu dhacay markii la soo yimaaday haddii aan xataa dawlad iyo qaab kale cafis waa kii ururku bixiyay haddii dad waxay dhahaan waxa weeyaan cafiska oo haddii dawlad badanka la wareegto cafis meel bixiseen bay dhahaan moogta cafiska waa sharciga islaamka ku waajib oo saaran cafiskii la bixiyay haddii xataa aan dawlad lagu waxaynaynin nin walba oo ama xoolo cunay ama ruux dilay waa in hebel baa dadka kala bar loo garanaya ruux ka daba tagay oo alif oo ruux qabsaday xataa ma jiro dadkan xataa maartay ka hadla jilay ogaadeen iyo xaaladaha iyo ka wada muusanaama maartay oo aliftimaa
oon aliftu gobonaadoon bay ahayd wixii ku dhacayna ilaahay abaalkeeda ka sugaysaa waxay rabtayna weli mayna helin laakiin waa dadkii ay haysteen dawladdii iyo dadkii waxa weeyaan waxyaabaha kaliya inta badan yaa dhawaaqa moogtahay waxaan ka wadaa macnihii wixii dhacay ee saa ahaa cashirkiisa oo sidiisaa soo hormaray etoobiyadii ay u shaqaynayeen ee dadkooda ay nooca ugu galeen yaa waxay samaysay intii dambe iyaga ahayd inay layso wax dambe oo dhan ay dhibanaya hadda 7 sano iyagoon ba ahayn waxaa leenayay etoobiyan ba waatay loogu tegayeen markaan meel saaray iyagu ay noo dhagajabiyeen soo ma garanaysa kaaga daranay kuwii deegaanka la keenay Ethiopia haddana wax isla qaateen haba la baabi'iyaba inta aan afka hadashay wixii ka hadlay ee dhawaaqay ee diiday cadaan ma dhageysan safayaanka say uga hadashay waana inaan ciidanka la tirtirin waaye la xajaa anaga hayse 3 nin oo walaalaa ayaan ku samaslay oo 4 nin oo walaalaa oo isku hooyo dhashay iyo booliska mid baa intuu yaan beelo boodo markaas uu labadii kala dilay xasaar kii wax dilay kii kala sama hadduu kii dhaw ka waran kana waan dilay kaliya mid ahaanay way karabkiisa banaanay sama way noocaas aan deegaankeena labadii kala dilay asagii hadii la qabsado ama la dilo ama la dhaw laga argoosan madiiba noqonaya Soomaaliya in la wada gablamo inay dalka iyo dadka iyo diinta difaacaan baqoshana waa inay laakiin caalamkii ku soo noqdaan iyo gabdhihii iyo wixii way markala shacab ku soo noqdaan oo waliba kuwa aan garanayno oo hebel oo waxay sameeyeen iyo dhibka geystaan oo geerjira kamid ah garba waxa weeyaan caalamka ku gubay hadda iyo xafiiska iyo gabdhaha ku leeyahay ilaa 7-8 goobood kale ka soo shaqeeyay way qorantahay dheegtiisa in mar ragii nooca haddana uu mar dambe soo celiyo waana nasiib daro iyaga ku dhacday oo labaad waana xusuusin kale ma garanaysaa waa dawladdu way amartaa ciidankuna waa askari ama amarka uu qaadan laakiin wax amarka shariicada islaamka iyo lafahaaga iyo dadkaaga ku duleynaya inaad tala ka dhibataa muhiim adigu fikir cad ka dhibato way sababtay caalanka gabdha Soomaaliyeed oo farxad keenaya ugu bal hadda ku macal deegaanka ee madaxweynaha wasiiradii iyo ciidamada deegaanka اسبوع soo 7 maalmood ma maalinka axad waxa weeyaan jigjiga wadooyinka xidhan oo kaniisada xidhan bal taanka dadka ku dhacay nafs darada axad oo dhan hada waa iida xmarada waqti maracad bay soo qaadaan caalamka ilaa kan waa caalamka markaa mar waa astaan gabdhaha Soomaaliyeed inay farxaan baa loo diiday maracad bay soo qaadaan kaniisada maalinka axad oo dhan waa isbuuc hal maal way labadii bilood bana mar bay sameeyaan waxa weeyaan wadooyinka waxa la keenaa xataa sanamo ay ilaahay ka dhigayaan oo xataa حصل إيه بشوف هلاك بطنك ضعيف يشكين ودوين كان روب بلا ديها عيدا سل يبار يبلا من عين والله حيد والله إلالين وين كبر الصوماليين مرك فرحت بس قوي معنا سوا ضغط كل أنا فرحت يعني واحد كده بالسمينين أنت ساعدنا على وضع ساعة وصدق ساعة وضع كل فرحان نقول سي يقول جدي تجلس إن الله حدا اللي تشد الله بعيد قف كست أو صومالي أو كلا كحل كاي هذا يا ليه بيكون نقول dhibcaha ku darmanaya ee kuwii hore ka daba tagay ee ku noqon waxaan isleeyahay waxaa la rabaa in faraha dhiig loo geliyo la fadarayo sida kuwii hore ma garanaysaa Ethiopia ruuxa inay fadarayso oo ay kharibto ay faraha dhiig u geliso mooyaan ma sideyso marka ciidanka deegaanka booliska iyo arbaaba tanaaga iyo maleeshiyaaga iyo taraafigada iyo maxaan ku dhahayay hay'adaha ammaanka oo dhan ya sharafta dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina yaa wax ku tihiin ha ku ciyaareen caalankan iyo gabdhahana waa hooyooyinkiina walaaladii caalankan waa kiini nin aan 5 walaaladii ku ka maqnayn ma jiro astaantiina weeyaan waa sharaftiina caadiga deegaanka dhanba wuxuu ku yahay dawlad ee mishaar ku qaato ee qandaraas lagu qaadanayo lacagaha lagu cunayo baajid ku lahaynay wuxuu yahay waalif waxa weeye marka waa dhibaatooyin ka mid tahay qof samcadiisii iyo sharaftiisii adigu aad u dhimanayso adoo mushaar qaadanaynin oo lacag qaadanaynin oo ku soo shaqeynay ku shaqeynay oo eega xataa ka rabin oo eega macnaheedu ayna xataa u waxaynaynin in haddana ay sharaftii ay mar walba dhibaateeyaan oo sidii u waxayaan nasiib darrada wadanka ay qayb ka tahay marka waxaan leeyahay madaxweynaha iyo wasiiradii qolada hadda ka hor baan mar la hadlay oo fariin u gudbiyay ilaahay aan ku anfacmayso ku anfici
nin baa iibaal yana garta sheeg baa leeyahay ku dagaalalay ma dhih marka waxaan leeyahay ciidanka deegaanka ama tuula ha jooga ama meel u sarreysa ha joogeen ee jananka ugu sarreeyo askariguna ugu hooseeyo dadkiina ha ku ciyaarina waxaa sharaftu leeyahay dadkiina ha ku ciyaarina halgankan iyo calankan iyo astaantanna waa sharaftiine wixii dhacay intaad cashar ka qaadataan ha u adeegsanina ogostii dhibkaad u geysateen dhib ka dambeeya ha u geysanina qod inay xiridiin arrintaas fariintaa waan u gudbinayaa haddii ilaahay ku anfaco wanaagsan haddii kalena haddee nin walba taariikhdaa qori welibana hadda waagi hore way ka bedelan tahay oo xilliga hore haddee meel madow waddanku ahaayo waxaa weeyaan dadku aqoon ma lahayn oo teleefano waaweyn afarkaamadaha degjaabo kii talaba saa u qaadaba sawirkiisa iyo magaciisa saddexan uuna baalkiyo waan iska qoran uun dee anugu imaan cibin xarja allah si muxiimkiisa baalkii baa ahayn madax walba kiisa mar way soo maray marka hay'adaha amniga iyo ciidankana waxaan leeyahay arrinta sharafta iyo midda lidka ilaaliya astaatan iyo calankan dhibkii hore yaanu dhaafna faraha ka qaadnay hana xusuusinna dhibkii hore ha ku celinina gabdhaha iyo xadhiga xataa haddaad xanaaqdaan xagga ragga u kaca gabdhaha daaya billah caleyk gabdhaha daaya hooyooyinka iyo gabdhaha taaban wax kastoo samaynayaan ragga aada u soo kaca oo ragga waxaa weeyaan waxaas dhahaysaan wixii oo nalifaya ragga wixii aad la tacaamulaysaa tacamul laakiin gabdhaha waa laba taabtaan gabdhuhu gooyini gabdhaha daayaan leeyahay waayahay sultaana waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka bal dardaarankaaga u dambeeya eed bulshadii reer ogaadeen iyo aada u jeedinaysa wixii aad baan u mahadsantihiin waa ini mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waan salaamaya bahadiina dhalinyarada bulshada soomaaliyeed bulshaweynta soomaaliyeed iyo bulshada reer ogaadeenyana aad baan iyaga u salaamayaa waxaan u dardaarmayaa oon fariin adag siinayaa qadiyadan oon alif qof kasta oo soomaali ah waa sharaftiisa qof kasta oo soomaali ah waa qiimkiisa iyo wanaagiisa hadduu maqan yahay iyo hadduu joogaba waxaad dareemi kartaa 30 sano ee dagaalka ay TPLF iyo Ethiopia ay kula jireen waxaa weeyaan badna ciidamo soo hadal qaadeen xamar seelacna ciidamo soo hadal qaadeen 60 sano ee waxaa weeyaan ama 7 sano hadda la joogay waxa badda keenay waa fursadda la helay waa horeeba intii jigjeela la dhaafo oo xamar baashi Hargeysa la dhaafo yaa oo Boosaaso la dhaafo xamar la dhex degi lahaa xaqiiq markii laga hadlayo marka shacabka Soomaaliyeed ee guud waxaan leeyahay qadiyadan waa sharaftiina Soomaalnimo hadday guulaysato shakhsi ma guulaysan ruuxna ma guulaysan qoysna ma guulaysan Soomaali ba guulaysatay hadday guul dareysatana shakhsi iyo qoys iyo ruux midna ma guul dareysan Soomaali ba guul dareysatay marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ee waliba intaan anagu gumeysiga ku jiray ee dagaalameynay ee dhaawacmeynay ee dhimanaynay fursadaha haystay ee wax baranay ee aqoonyahanka iyo journalistiga iyo dhakhaatiirta meedhana qadiyadan ha u istaagaan ha garab istaagaan maskax iyo maal iyo talo iyo fikir intaba waa hanti Soomaaliyeed hantida la iskagama ciyaareen ma guuraan waliba ha u istaagaan baa Soomaali weyn Soomaalida deegaanka bulshada reer ogaadeen waxaa leeyahay warwaad aragtaan tili guuleed beeraheedii iyo city iyo guradhaamole waxa haystee waad aragtaane waana taan waxa weeyaan shalay iyo daraad baan lahayn war wax ka weyn bay soo wadataa inaga gaadhay waxa weeyaan ininkoo midnimadiina ilaashanaya deegaanka oo sharaftiina ilaashanaya qadiyadan garab istaaga cid kasta oo deegaanka ka mida ka wasiirka iyo ka ciidanka iyo ka madaxweynaha iyo midka qabalaha jooga waa sharaftiisa mid walba maanta maalin aan ahayn buu dareemi kii maanta xataa diidan berri buu ogolaani marka iyagana saas baan leeyahay waxaan kaloo raacinayaa ku gabagabeynayaa bulshada deegaanka waxaan aada ugu adkeynayaa midnimada dhexdooda colaadaha hadda waxaa taagan sawaxan waagi dhaweyto waxaa weeyaan degmooyinka iyo goboladii iyo la bixiyey war wax Ethiopia ay bixiso ay qayminayso
oo hadday doonto inay isku kindishaba ay rabto hadday rabto ama ka yimaado soo kordhay ha isku dilin dhib ha ka keenin sababtoo ah nin aan waxba ku ogolaan cadow ku ah wixii ka soo gaaray in alxamdulillah intii la dhoo la iska daysto inta la dhigtaa miima moogta dhulku inaga badan yahay oo dadku inaga badan yahay oo waxaanu inagu filan yahay waxii soo kordha cidii meesha u yimaado inta joogta isku fulaysiiso yaan isku khilaafin wixii kala cidii wax ka maqan yihiin tabaysayna wax ka weyn baa inaga maqan council iyo aawayaan iyo degme wax ka weyn baa inaga maqan cidii tabaysana waxa ka weyn ha raadiso yeena kuwa kala ku xanaaqan dhihin councilka nagi bay qaateen iyo baalkii bay qaateen yeena la dhihin gacmaha la isqabsada colaada dhexdeedana ama walaalooyinoo cashirkii dhacay wax ka barta dhimashada dhexdeena iyo colaada dhexdeena iyo dhibka dhexdeena ka tanaasula aakhiradiina iyo adduunkiina iyo sharaftiina ka tanaasula taasaan iyadana u gudbinayaa fariintaasaan u gudbinayaa insha Allah